soo dhawaada maanta waxaan ka hadlaynaa amniga guud ee gobolka Banaadir. Maalmahan waxaa soo bateen ciyaal weerarada oo degmooyinka gobolka Banaadir aad saameyn ugu geystay. Marka waxaan rabaa in ma aragtay hoosas wax badan laga qabto. Dadka xilalka aan u dhiibana wax ay qabanaan ma lahan. Taasina macquul ma aha, suurtagalna ma aha, qof bini'aadan oo ku shaqeyn karna ma aha. Marka hoosas waxay u taala taliyaha booliska in uu gobolka Banaadir wax uu ka qabto. Aabasiga horta taliyaha booliska ee gobolka Banaadir iga warbixi horta gobolka Banaadir ciyaal weeradan maxaa ka qabateen, maxaa ku soo kordhiseen. Waa mudan madaxweyne taliyaha booliska sheegay aniga waa hawshaasna ana la iga baahnaa inaan qabto, laakiin waxaad moodaa in culeysku aad u badan yahay. Degmooyinka qaar mudan madaxweyne isku mid ma ahan. Degmooyinka qaar aad u dhibaatada ay ka socotaa. Mar walba waxaan isku daynaa isbedel fara badan inaan ku sameyno. Ciyaal weeradan oo maalmahan dambe hadda soo kordhana waxaan rajeynayaa in ma aragtay muddooyinka soo socdo wax badan aan ka bedeli doono. Intaas waxaan rajeynayaa in adigana dulqaad gooni ah aad yeelato oo shacabku mar walba waxaan ku dadaaleynaa sida amnigooda loo sugi lahaa. aad u mahadsan tahay. Waxaan rabaa in hawshaas aad iga soo dhaafijarto. ciyaal weere iyo waxooda iyo hadalkooda waxooda ma maqli karo. waxaan rabaa in meel iga saartid. ciyaal weere waxa dilay, ciyaal weere waxa sameeyay, ciyaal weere dhac geysta ma maqli karo. gobolka Banaadir mas'uuliyadda ugu weyn adiga haay. adina waxaan ka rabaa hawshaas inaad ka soo baxdo, ka soo bixi weys xilkaada ku weyneeyo. ani meesha indhaha ii tataaginaani oo balaayin dhaweyne istoose shaqadaas sax u gudaniyo. hadii kale xilku waa ka qaadani cabsi iyo waxaas dhan ma qoro. aw taliyaha degmada Shibis iga warbixi degmadaada horta adiga maadaama mar dhow lagu doortay. mudan madaxweyne waa kan degmadeeda Shibis dhinaca saldhiga nabad waaye. degmada wax saameyn ma lahan. waxa waaye dadka waxaan u sameeynaa dadka dhibaatada dadka geysto meel gaar ah ku xirnaa, hablaha meel gaar ah ku xirnaa, raggo meel gaar ah ku xirnaa, caruurtan meel gaar ah ku xirnaa. laakiin mudan madaxweyne waxaan la yaabay saldhigan markii la ii soo magacaabo waxaan arkay 22 qof oo maalintii oo rag ah ayaa saldhiga imaaday. sababta ay u imaadaan iyo micnahaasna waan fahmi waay. marka mid walba dad qaar baa waxaad arkaysaa oo leeyahay anigu dil baan geystay, anigu dhibaatadaas aan geystay, waxaan rabaa degmada in la igu xiro. asigoon dhibaatada meesha uu ku geystay ay tahay degmo kale ayuu wuxuu ka doorbiday degmada inuu imaado. marka waxyaabo mucjiso fara badan meeshaas ku arkay mudan madaxweyne. laakiin waxaan rajeynayaa in ma aragtay horumar ka duwan in hadda sameeyo oo saldhigu ma aragtay dayactir fara badan uu u baahan yahay inaan ku soo kordhiyo. sidoo kale dhinaca amniga degmadana in safe aan ka dhigno. ma ba arkay taliyaha militariga ciidanka dawladda Soomaaliya ma ba arkabe muxuu la gamana intuu joogaa. war adiga waayda iga warbixinayo ii sheeg dhinaca militariga sida ma aragtay ururka al-shabaab loola dagaaltamayo iyo ma aragtay xaaladdu meesha ay marayso. waxaan maqlay degmooyin aad u fara badan oo kamid ah degmooyinka gobolka ii sheeg maamul goboleedyada in la qabsado. marka adigu bal iga warbixi intaan su'aalo aan dhowr 10 su'aal aan rabaa inaan ku weydiiyo maadaama aad tahay shakhsiga ugu saameynta badan xilka haya ina adigu tahay. waan ognahay laakiin shaqadaadu waxaad moodaa in ma aragtay waxyaabo inay ku jiraan. marka bal iga warbixi degmooyinka la qabsaday ma runaa mise waa been horta. mudan madaxweyne aad u mahadsan tahay. waxa waaye shaqadu si fiican ay u socotaa. marka dhinaca ururka al-shabaab sida loola dagaaltamayana waan sameynay. wax degmooyin oo hadda ay naga qabsadeen ma lahan.